shaqo noocan ah si ay ugu shaqaysaan ii sheeg maxaa bal sameeyaa ii sheeg qaali waan kuu sheegay aniga ayaa wax noo qabana ayaan ku dhahay waxaa qaali fiiri nafsadaada eeg waa maxay waxaanoo idil fiiri siday u jeexmayaan waxaad xiran tahay dhar raqiis ah haddii aadan ilaalin karin muuqaalkayga ugu yaraan ilaali aniga kayga ha odhan wax cun inakeen hadda gudaha si aan cunto u cunno lacagta oo dhan waan qarash gareeyey waqtiga hadda la joogo waxaan raadinaa shaqo qaali hele xoogaa lacaga aydana waxaan ku bixiyey kirada guriga waa inaad heshaa gabar xaaladan oo kale kugu noolaan karto ma awoodi kartid inaad i daryeesho aniga awood uma lihi inaad daryeesho kharashaadkayga waxaad samaynaysaa ruwaayad maalin walba isbuuca dambe waan ku ballan qaadaya qaali waa og tahay in adiga kaa helay keligaa ayaan ku jeclahay qaali mar dambe dib ha ii soo wacanin فرن واو adiga iyo halkan micnahayga waqti dheer ayaa igu ka dambeysay waxaad ku guuleysatay waqti nasiib ama wax kale sheeko kuna hadda aniga waan gursaday waadna og tahay ninkayga waxa uu madax ka yahay meesha waxa uuna helaa bishii 5 lek waadna og tahay waxay u dhigantaa $500,000 oo rubi ah ii sheeg adiga hadda maxaad qabataa mudane sidee tahay mudane waan fiicanahay adiga sidee tahay waan fiicanahay mudane fadlan mudane fadhiiso halkan miyaan fadhiistaa haa mudane lama kulmin miyaa xaaskayga mudane waa xaaskayga sooniya waa mudanaheena oo aan la kulannay maanta ma xaaskayga qoftaan haa mudane waya sooniya waa isla mudanihii aan hore kuugu sheegay oo mashruucan igu gacan qabtay waa mudanahaasi sheeko kuna mudanahan waxa uu hore jecel ugu qaaday gabar wax badan laakiin gabadhaasi waxay kaga tagtay lacag la'aan waa bay ficneed inay kaa tagta mudane maxay tahay gabar nasiib daran mudane waa inay dareentaa inay yahay dambiile dhibaatada xanuunka jacaylka alla adduunyadu maxay shalaatadu dambaysaa ma ahayn inaad sidaan u fikiro haddii aan ahaan lahaa qof wadno leh maanta waxaan taagnaali lahaa heer wanaagsan bal eeg qofkii aan shalay kabtayda hoosteeda aan dhigay maanta isaga ayaa lugihiisa hoos joogaa way xanuun badana weligaa ha gelin nafsi weligaana jacaylka lacag ha ka dooran doonta weligeeda la iskuma naco qofka haddii uusan maanta wax haysan waxaa macquul ah in uu beri ilaahay siinaayo adiguna qaybka waxba kama taqaanin weligaaba jacayl ha ka dhigan lacag shayga ugu awoodda badan ee wakhtiga waa isbeddelka waxa ugu weyn ee ku soo gala waa guusha jacayl qof qalbigiisa wax micnaha uma lahan qalbiga wanaagsan waa mid ka weyn wax walba ha isku xanuunjinin kuwa kaa tegay u isticmaal xanuunkaasi inaad ku gaarto guusha mustaqbalka waa taa kala duwanaanshaha